بسم الله الرحمن الرحيم. عشركان حي waxaa ka bilaabeynaa waxa la yiraahdo clip mask. marka waxaan leenahay clip mask wax kale ma ahan wuxuu ka mid yahay toolska basicska la isticmaalo Photoshop marka la joogo. hadda waxaa noo muuqdo qoraalkaas marka waxaa ku dhex jiro sawir texture ah. marka sidee loo dhex geliyaa sawirkaas oo kale qoraal. marka waxaan sameynaynaa marka koowaad sawirka soo qaadanaysa kadibna textiga dhex gelin doonaa. waxaa kaloo sameyn karnaa option-kan hadda noo muuqdo kale asagana waa clip mask. marka xarafki oo la soo dhex geliyay sawir kadibna wax laga sii beddelay. marka waa arkeynaa waa kana sawirkan noo soo furan. marka sawirka rabti soo furo adii tusaale. marka waxaan leenahay qoraal ku qoraynaa. qoraalka marka intaas ka dhigaynaa. tusaale midkan oo kala soo qaadanay. waxaan leenahay nooca rabti ka dhigan kartaa direct UK direct Soomaaliya. marka noocan oo kala ka dhigaynaa. marka qoraalka waa kana soo qaadnay qoraalkana ku qornay. marka waxaan sameynaynaa saxa saarayna ama enter leenahay. kadib qaybta layerska imaanayna. marka shapeska waxaan rabnaa qaybtan layerka waxaan rabnaa inaan kor geyno textigana hoos. marka waxaan leenahay qabo korgey. kadib waxaan leenahay right click sawirka. kadib waxaan leenahay create clip mask. sidaa marka wuxuu kaaga dhigay clip mask. marka background ma lahan. marka background haddii rabti inaad u samaysato waxaan leenahay meel banaan imaaw. kadib waxaan leenahay plus ku dhufo new waaye hoos keen. hoos markaa keentid waxaan leenahay layer. kadibna waxaan leenahay new fill. kadibna solid color. kadibna waxaan leenahay okay. midabkaa rabti marka dooro. tusaale waxaa dooranayna anaga midkaan oo kale tusaale waxaan oo kale. kadibna waa kana. marka qaabkan oo kale u sameyn kartaa. sawirka waa kana guduhu ku jiraa. spaceka rabti oo geyn kartaa. qoraalka haddii rabti oo bedelan kartaa kana ku dhufanay. kadibna textiga haddana kusii dhufanaysaa. kadibna qoraalkaaga u maanaysaa waxaa rabti ka dhiganaysa tusaale 3 xaraf oo 4 xaraf waxaa rabti. marka waxaa leedahay haddii rabti labadooda inaa sikiso qoraalka iyo sawirka isku dhex jiro. marka waxaa leenahay dooro qoraalka kow. kadibna waxaa leenahay sawirka control qabo sawirka dooro. kadibna geeskan u siki spaceka xoogaa geeskan soo qabo yareey anaa camalkeen. kadib waxaa leenahay textiga keligiis ku dhufo. marka textiga markaa ku dhufato waxaa leenahay text imaaw. kadib qoraalkan wuu badan yahay 3 xaba camal noogu soo koob. kadib waxaa leenahay waa kana waxaana rabtaa isticmaali kartaa. marka waa kaasaa midka xiga waxaa waaye waa kana sawirkana haysanaa. marka looga ka qaadaysaa. kadib waxaa soo gelinaysaa qoraalka u baahan tahay. tusaale waxaan aragnay xarafka D oo kale. kadibna waxaa leenahay waa weyneyneynaa. xarafka rabtid markaa waa ku sameyn kartaa. laakiin tusaalaha anaga waxaan rabnaa inaan fahanno qaabka u shaqeeyo. marka waxaa leenahay clip mask korgey kan sawirka. waa rabtid clip mask inaad ku sameyso right click. kadib waxaa leenahay create clip mask. kadib waxaa leenahay right click duplicate layer. marka dhahdid waxaa leenahay magaca isaga qor haddii rabtid. waxaa leenahay layer 2 oo kale isaga qoranaya. waxaa rabtid ku qor adiga okay. markaa dhahdo waxaa leenahay soo qabo kan midkaan hoos keen. hoos markaa keentid waxaa sameyn kartaa hadda in waxyar aa gees u sikiso si offset ahaan oo u noqdo okay. kadib midkaan si loo dareemo midkaan waxaan sameynaynaa kana color ku furaynaa. waxaa leenahay marka click kadibna adjustment saturation. kadibna waxaa imaanaynaa qaybtaan okay. kadib waxaa leenahay noocan oo kale saan oo kale okay. sidaan oo kale leenahay. haddaa u baahdo marka crop waa sameyn kartaa qaybahan inaad iska jarto kale. waxaa leenahay crop imaaw.
kadib crop ka imaadid hoos iska soo siiki qaybtaan soo siiki okay enter dheh ama saxda meeshaan saar kadib waxaa ka dhigtay sidaan oo kale sawirkaaga marka cashirkeena intaan ugu egyahay ma santiin waa inoo cashir kaxiya